jirkaaga inaa iibiso qayb ka mid ah kuma faqri bixis ubadka ilaahay ku siiyey afku ilaahay ooman isaga irsaaqay wax badan ay heli doontaa iimaanso bay oysimay wallahi dhibki ay sada ogaan leed waxay tiri kalimaha macallinaha baxsay dheelay ee walaalo igu caawi bas meesha lagu bixiyo igu caawi ilmeyga waa baahan yihiin guri jiingada ku jira oo hal qolo dad isiiyey بري وحي عوني لها حتى مالكم أوجي هبين نمي سوا عادي ماشي كليد لو بيحي يجي يقول عاوي سي أنا العاق وحلو والله واجر الرعاد إلا يستكت هدي اللي ده هلال محاجة على هدي دب لو علي نرش هذا أنا كسح خلطكي وين شيء عن قالوا مثلا طالع برامج عرب أوصبي وسؤال بهالكلام سمع صوماليات إنا مرين هبابي وأعمال بين وشيء نيك وقول بنتي صغيرتها هيا سو دم إلهي نهجع عفيه والله دم وين أنقله هيا مدري جبت جوا يقدر ولا بقى وحول هو إذا يبيه كل هذا السنة يجا رالك أعطى أنا بحصده ولا ماشي اللي بحلها يجي أنا وحكو صبرتها الرباء عدي إذا أنا وحقطره كل ما اللي بحي بس ناشك أنا بيبغى أرجع إلهي إسكس كلية إذا كلي بيحرق قضي بالقهر maxaad kala socotaa arrinka raxmo waxa ay ku kacday fal aanay gabar Soomaaliyeed horay ugu kicin iyada oo bixisay kilideeda bidix una bixisay sabab la yaab leh oo ka yaabin doonta assalaamu calaykum salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi hada isku istaal uma furnay walaalay bas balbar furo ayba waaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal halkaad nagala socotaan waa hodman show aniguna waxaan rabaa magac cid geeyay asal film silaaliyootoy ajaayib sheekh laba janaal la isku dhaafuro bariga nagu qaata waa istal ku weynaa freeze kala ana marti ahaay maxaa barnaamijka u dhex galaysaa adigu waa garaway walaalay waxa had wax aa baratid baaskaaga waaye darawal gaari lagu moodi karo moogtahay asoo wado arka warkiis hadda barnaamijka ana iskale ana horta hayga khasin bay miya بس baa kale mid wax dhaafay indhiisa malid laakiin waa iska qalqaylana maanta ay ku soco horta aad bari farxad igu tahay inaan hadma show kugu soo dhaweeyo aan dhaweeytinin yaa way aan nin wareysigiisa daawado waan ku labado marka inaan kayga labado ka baqa ninkaas ku aha laga raalaw nino la iskuma sheegay hadaan jeed greedy miya greedy waa badan yihiin mid waa reeb midna reeneeyo waakay نور أقدر إلى كاغديو فري دغاو emotional damage ka daareenay ay waay waxaan helayna waa teamkayga waa saaxiibada waa beenti hadii cid grid asaa grid ah ma grid Nairobi hal qof joogo waana salaamayna ilaa qaraasi ku soco dhamaan daawadayaashayda qiimaha iyo qadarinta mudan raalli ahaada ninka Hilaaliyootay waa nin walaalkayo ma qali jirtay ama hada waraa maxay kugu soo baxaysa marka aniga kula joogo ma kugu soo baxaysa jirtay kulaal minanka jooga miciil waxay leedahay ma qashay abeesade naga daahmay libax waa laga kacaa miciil abeesa laga kicin oran naga tarwaale marka ninka markuu hodman show joogo asaga ma artay maama mani waa reemadu ku soo wayahay hodman maanta magaalada Muqdisho ayaanu joognaa ma ogtihiin magaalada Muqdisho ayaanu joognaa heesta qasi way waaqana laxanka ana wax ku daray haye barwaa iiwad ما برنامجك عوضنا. ميا. عدكيس عدحوس أوجي قابدريس إيسو هاي. ما أضيع ورسنا مساني وريا إلهي يقان. بالواي يكون ساعة. وحنكو يدينا يا. وحنكو شيء يا. هاي. برضه ما أنت قاعد مفرح سنة هذا من شو. كم هو؟ إلى ده دهنيس. لما أدري كروح عمرتي بكسر عي أفضل وتموقته. والله. مرك شيران كان دقايا. أنا هرت بيك فارقو أصل فيلم ساكالة السعودي لما أنت ضايش أصل فيلم ساكالة مكسر عملية. Thank you. وحي قريدي على إحساس قريدي عشان سلامينا هضم الشو تيم كحرنا وسلامينا شرف إكرامي إيتهاي وحاول هضم الجبر ووينك أو عيدتك أو ورثته أنا وما بنجمو وأسيسه يا لكن وحاول ما أنت فرحة إيتهاي هذا موالد محمد صدق جرى سوق بس ما أنت وكورسنا مرة كاج ما هو الرئيس أنا وكورسنا ما بقول هنا برا في ديزاين ربوا وقفك مثلا نوجو قريد الدنبه مو لو من هاي قريد ما لو جول واي horta waa wareysa hada waa daawaday anta ku aqoonin dadka waxay sheegayaan inaa ku bartay anoo yar oo wareer jooga iyo ado tortoro jooga oo jidadka laga celinay tortoro beer ma ka falay in gaar qab tortoro waa la qariyay
تورتور وهيجيني بس وكاسو ورجع ملك لو كان يسبرت لو هاد جونا قلت هي اني waxaan هاد من عد جيلي laftigayga waxaan rabaa inaan أنا يراك داو جري لفتيجاga هاد من شو قبر مالين ما لو كل مدون تايس لهاي adoo yar ma idaawan jirtay shaaca laga bilaa sheekada ahay kamarada ma la arko yaa sarafay ii tahay maanta inaan kula kulmo inaan waraysiga qaado oo faraxsanahay waraysiga ii bilow waa degdegsanay siba u naxnaxaya su'aalo adag ama ku weydiin doontaa weydiin walaalow hay lacag la waxna horta haysa lacag la bees so kalideeda rabaa inaan gatee barnaamij kali lagu gadaya wareejinaysa ii waran kalidii xagee lagu iibinayo أنا كلية قارئ قلت هي بقف عديها قلت ما يرى هذه تمها إيوه دقها قيبته هذا إيوه والله أنت هو يدي الشيء وأنا قاعدة يا مانت هدي اللي ده هلال محاجة على هدي دب لو علي نرش هذا أنا كسح خلط وين شيء عن قالوا عن سنة طالع برامج عرب أوصبي وسؤال بهالكلام سمع صوماليات إنا مرين هبابي وأعمال بين وشيء نيك وقول بنتي سقرتها هيا سو دم إلهي نرجع فيه والله دم وين انقلب هيا لكن أنا جوا افتيمين يجاهد هيا لكن افتيمنتي سخرنا لو فهم هيا شاكر دير هذا ضد بدن وكو عبر قادن دونان oo barnaamijka daawanaa marka serious wax hadlo haye waxa isoo wacday gabar raxma la dhahayo haye waa gabar jeclahay walaashi raxma salaam karaa raxma kili gadoo loo bixiyo aba qof cidiya gatiiraad raxma hadda way dhooftay timeeyana ana gatay TikTok waxay soo gelisay clip yar oo ay leedahay kilideeda gatay haye lacagna waa haystaa nin ii soo raadiya marka cusaan waxa ugu dirwaysay marka inta tiri si ka fani dadku u arkeen dad badan ay u daawan haye comment ya marka barnaamijyada ka bixi jirto asal ku xirnay haye way ila soo xiriirtay noocaas ahay kana ahay haye hal oo Amir hal firin u diray haye waraysi u baahanahay Amir wa salaamina haye waxay tiri marka waraysi asaarga waxaan ku dhahay barnaamijkan ana quruxsanahay diyaar mu tahay waxay dhahay wiliga janaal way kama muuqan walaa TikTok gaas isaga falaaday ma iga diis maya ku ina kalidaada gadatay caruur ku joogto lacag fiican ah haysato bulshada Soomaaliyeed u sheegayna ninka ku rabo saab iimaanay haye si falaada u sameeynay waa xasuustaa gurigeeda ugu tagay mootada ku soo qaadatay koonta kaabir baanadu ay la jireen dariiqaasi oo saami izaki barnaamij yaab la hadisay haye waydi rabto daawan kartaa hadman waa lagu soo shirkireena markaasa gabarta xifdi badan waxyaabaha ku amaanay waxa kamid ah waxa u sheegtay hore ka qaadan inaa weligeed inay ogeed camal jira ay marka waxaan ku iri Soomaaliya mashruuca ka socda mashruucaas waa kula daaranaynaa dadkana oo iftiiminayna kilidaada ina gadatay oo lacagtaas ah haysato oo nin u baahan tahay ilmaha kula koriyo haday lacagta dhamaatan oo shuruudda ay tahay inuu kilidiis ku gadayo ba sameynayna barnaamijka way ka cabsanaysa bilowga hore laakiin waa ku dhiirigeliyay ogolaatay yaa kugu daalin barnaamijka doobnay si yaab leh iyadoo u hadlayso ba narration u sameeyay codaan dul saaray waa ka faallooday barnaamijku waa sii deynay waliba waxay raacisay qofkii ii baahan oo danaynayo wiilasha Soomaaliyeed meel walba Soomaaliya ay ka joogan numberka asal ha igala soo xiriiraan asal igu kii soo xirayso kilideed kili kamid aan gaday bil ka hor $200,000 kala baxay waxa uu gaday inaa wiil qurux badan aan guursado wiilasha hadama waa inuu wiil iska dheelitirno hadda qurux badan inaa ku guursado 10 ciyaalna inay joogto 10 ciyaal ay joogto 10kaas ciyaalka inuu ilo koriyo anna aroos inta qof loo dhigo ama inta lacag nolol lagu noolaa nolosha kuna noolaado arrinka yaabka iyo ama kaaga leh ayaa ah in haddii ay lacagtaasi dhammaato laga bixin doono wiilka quruxda badan kilidiisa si loo biisho ninka haddaba ha ku talagalo hadday tayda dhammaato oo lacagtaas aan ku biilayo dhammaato inuu tiisa bixinaayo ha ku talagalo kili kulu ku beer waaye hadduu diido soo hurdaa laga siibaya asxaan malaha waa boost gareeyay saacad ma oolin wallaahi WhatsApp-ka asal waa buuxsamay qarar ani waay walaalo raxmaan raba kana waxba lama hubsan
wixii marunba bambeenba waxyaabaha iigu yaabka badnaa waa gadaala kaaga sheegi doonaaye waxaa waay Hargeysa la iga soo wacay Puntland la iga soo wacay Galmudug Kismaayo Jigjiga Muqdisho warkeed ma laha dadka dhan waxay leeyihiin raxma rabnaa marka dad la qiirooday gabdho badan waxay leeyihiin hadaba kilida gadatay nin maxaa ku falay ilmaaga ma lacag ku korsid ma mool furat ma ka simid haye nimankii ana taleefanka qabanay just waxaan foofana u sameeyay xaqaya waay loo maalay ha waa qabanay markaas dadka waxay leeyihiin maxaa danta kaliidina kule gabar kili ka maqanta dhaawac ah maxaa uga baahantiin may walaalo waa quruxsan tahay gabadhaas anaa ku jecel de ma lacagteeda u jeedaa may lacagteeda uma jeedo si bini aadamnimo haday dhamaato lacagtaas taad in la bixiyo diyaar mu tahay ha waxa ku kafta ma yaalo shuruud maxkamadda lagu geynaa tolkaaga soo wadane waa laga kala saxiixa ha okay magacaaga saddexan taariikhda aad dhalatay sawirkaaga oo teesara ah intaba noo soo diraan ku dhahay raxmaan u diraynaa haday ku aqbasho waa ku nambarkeeda saxda ku siinaa waa la xiriiray مشي سكرت واي هاد إسكا أصل وحكي بوحو صورو يقرالو تلفونو ديغانا إدقيهن اللي يرد أو والله يا مركب هاشا أوقات كيسون وايا رحمة وعي هذا مليون نواقع في موقعك دا وشديس dadkii markay marba ka soo darayaan commentiga shareeka oo dad badan intay qaateen ay ka hadleen ee raxma adkayso weysay tolkeeda soo wacay ilaal waxay tiri ka bixi waxa ku dhahay waa taas waa ka tagtay walkan waatig wax la bixinayo ma jirto dhalinyaradii marka soo wacday macnaha inay iska ciyaarayna u malina wallahi dhabay ka tahay jaamacadan dhammeeyay kana si isu sharaxayna kaaga daran qof macnaha shaqadoon CV laga qoray amal CV oo qoray wuxuu shaqadoon oo haya gabar lacagta roo kaliya gootan ku baashaaray marka waa u soo jeedina waa tusa waa isla qosqosleena ana go'aan ka gaaray walaal waxay ku tiri aad oo maasan tahay qof aniga ii ka dhaamo ilaahay ku sahlo ima qancin walaa dira qofka qac niyab saan dhalinyarada wiilasha isaga ciyaareen oo isaga baashaalayni baa waxa soo wacay gabar nambarka asal la soo raadiyay muuqaalkeeda daawatay waxay tiri waxa deganahay horta gabar ay soo wacday waxay tiri walaalow raxme igu xir maxaa uga baahan tahay ku yiri waxay tiri gabadhan gabar aqli leh ma aha waa la talina maxaa kula talinay de rag maanta joog rag la aamino ma aha ninka 10 carruurta uga tagay war ma ka tagin ninka waa ka dhintaa ku dhahay 10 carruurta ninay u baahan tahay qoftaan nin maxaa ku falay walaalo tukaan ha furato igu wareeji raxma Allah hadlo dagaal ay waa qof xaqooda doonka u doodo fiican bay u doodaysay waa qof fiican bay taas xaq ii dhig ay gabar kale soo wacday degmada Boondheer ay soo wacday waxay tir 3 carruur ah ayaa liigu dayacay aabahood waa iga tagay qaraabadiis waxba iguma siiso ilmeyga waa baahan yihiin guri jiingada ku jira oo hal qolo dad isiye biri wixii aan cuni lahaa xataa meel kuma ogi habeenimo soo wacday hal ahsan ii samee walaalo yarka muuqaalka duubay soo ma aha meesh kaliya lagu bixi igey igu caawi si aan lacag u helo wallahi waa jir racod ilaa ay istaagtay waxaan ku yiri abaay way xubintaada u saaray lacag badan hadaa hesho dadka marka waxay ku fikirayaan kaliyeeda aan bixiyo aan taajiro hadhow aan gashto kali kale marka lacag fiican helo oo lacagteeda ii shaqeyso kali kale gadana marka dadka waxay sir ogeyn organiska ilaahay ku sameeyay xubnahaaga xubin la mid ah qof bini aadan oo haysta malaha waa unique haddii kali kasta lagu geliyo fiina abadan ilaa ka dhimato kaniiniya cabi si akilidaada cusub oo lagu geliyay iyo jirkaaga u kala ilaaliso because way soo weeraraan jirka ma yaqaano virus oo maleynaa way dilaan kilida si ay marka u dilin kilidi waa la kala sabaa ee jirka kaniiniya lagu sabaa waxa la leeyahay anaga naga mid tahay ana ilaa ka dhimad kaniiniya cabi hay then waxa dhacday marka gabadhii waa waaniyay walaalay waxaan ku dhahay ilaahay u laabo jirkaaga inaa iibiso qayb kamid ah kuma faqri bixis wabadka ilaahay ku siiyay afku ilaahay oo man isaga irsaaqay wax badan heli doontaa iimaanso bay ooysimay wallahi dibki haysa hada ogaan leed waxay tiri kalimaha macallinaha baxsay dheelay ee walaalo igu caawi bas meesha lagu bixiyo igu caawi waxaan ku yiri aan ku imaado dhibaatada aan qabto ilmaha lagu dayaca aan ku duubo barnaamij samafala
ummadda Soomaaliyeed muxsiniinta aan u bandhigno si ay wax ku siiyaan gabadhi waa diiday taleefanka ku jaray waa ugu soo celisay message ii soo dirtay waxay tiri maxay ii qorsaneen wixii ana iskale ana gadanayo walaalo cidna mas'uul igama aha meesha lagu bixi igey habeenkaas istighfaar u istaagay rabbi yaa toogay macnaha inta qof ee rajo gashay ah inay kelidooda gadaan si ay u taajiraan dadku macnaha dad maangaaba ku jira aqliyan dad duruuf haysataa ku jiro gabadhii gabaray ii soo wadatay oo macquula waa ila hadashay walaalow gabadhan waa dhibantahay darisay nala tahay wax ku tara ma laha ma ku caawisi si ay kelideeda u gadato wuxuu ku yiri walaashay waa iska falaadeen anaga barnaamij serious ma ciyaar iska ahayd dadka qaraaxa kaga rabna fiyuus aan raadinaynay wax sax ma aha ma hubtaa ay u tiri haa gabadhan walaashana wali waxaan diyaar u ahaan ku dhahay inaan caawino taleefka igu dambeysay taasaas iga tagtay waxaa ii soo haray gabdho kale badan iyo wiilal kale badan oo 24 saac ilaa mid jigjiga jooga ay ugu dar waliba wuxuu ilaa hooyaday iyo aabbahan kula hadalsiina iyaga raali ka ahtaa inaan baxsado walaal meesha lagu bixin lahaa igey inaan wax ku soo bartaan rabaa cideedana wax u taro kili meel lagu bixi bas noo sheeg anigii waa argagax ilaahay isgis macna maxaa faraha ku galiyay ummadda Soomaaliyeed inaan ku laabkiciso arrinkan wallahi horta markii hore barnaamijka si ciyaar u furnay laakiin dib wuxuu ka noqday murugo wallahi serious ka hadla waa raadinay barnaamijka qof maalin uu naga wareysto hadmanay dan hooyaday oo sheegay oo guriga ila joogto barnaamijka marka ay dhigreynay waa iska falaadeen laakiin feedback ka soo baxay aan u sheegay waxay tiri ilaahay weydiiso dambi dhaaf mar dambana been hooyo saano kale dadka u sheegin lacagna ku raadin marka lacag naga ma baahan laakiin fiyuus iyo qaraaxay naga ahayd ma qosol fani fani laga ahayd laakiin ujeedo taas ka dheeraada ani wati ujeedku wuxuu yahay magaaladan Muqdisho hadda ogtahay hadda ogeynba kiliyaha waa lagu baxaa si dadban iyo si toos ah cadeyma loo hayaa arintaas cadeyma loo hayaa lacag hal lagu siiyo ama waa dhintay hal dhaho isbitaalada laga baxsado kiliyaha si caadi ah loo gataa meel dhan oo dadku ku feelaana way jirtaa magaceeda ma sheegay nin aqyaar marka oo professor ah saaxiibanahay baa maalin kulanay maqaayadii la UK ku kulanay barnaamijkeega uu daawaday wuxuu yidhi hilaal wax fiican sameysay markaas ku dhahay maxaa wax fiican barnaamij gabadha kelida gadaysa aad soo bandhigtay barnaamij fiican oo aad uga helay si uga helayaan ku dhahay maalin walba ilaahay ka baryaa inuu cafis siiyo oo dambi dhaaf iiga dhigo mayo dheh xaqiiq jirta toosh ku ifis suuq madow lagu kala gadanay kaliyaha dadka Soomaaliyeed gabar iyo wiil wuxuu doonaa noqdo laakiin si public adiga banaanka u soo dhigtay adoo ay fani ka tahay laakiin wax sax ah ilaahay kugu ilhaamiyay laakiin waxa ku dhiman inta fariisato inaad dhaxdo waxa jiro barnaamijkaas yaa lagu katoomin ka jooga marka fursada u waaye waan safaraan galay Kenya shaqo u aaday hadda soo laabtay shalay miyaa misdarad ah soo laabtay raxmo waxaan rabay inaad soo fariisiyo dhakhtarna soo fariisiyo raxmo ay cadayso barnaamijka inuu been ahaa wixii aad duubnay dhakhtarkan uu ka sheekeeyo haddii kilidaada aad gado in wax la mid ah aad heli doonin hatta lacag kasto yeelato in kilidaadii ay ku soo laaban karin marka dadkana laga waaniyo horta intaas oo daarnaa barnaamijkaas ciyaar ku bilowna laakiin nolosheeda maanta maxaa ka shalaynay hadii la dhaho waraysigaas aan duubado waa tahay halkaas waxaan rabaa arrintii kalida marka sida kaftanka barnaamijka aan ku furnay laakiin dib wallahi saameynteeda ka yeelatay aad waa qiirona wallahi inta ka hadla runtii qof inuu kalidiisa iibiyo waa sheeko dheer wax horta wax suurtagal kale taa ma malaynaya anigu adan project afrey waxa ay macnaha dad ku dhaaranay inta buuqaal iga soo wacali kitaab quraan markay ha wallahi billahi hatta waa u bixina lacagteedo dhamaanna teed ina u bixi diyaar u ahay waa tahay daawadayaal halkaas aan ku soo gabagabeynaa sheekadii kalida yeelatay saameynta aan la filayna iyadoo sida ciyaarta looga hadlayna isku bedeshay waxa weeye arinta aad aragteen oo sida loo daawaday iyo ficilta ka imaatay Hilaal inooga sheekeeyay waxaan mahad celinayaa Cusaamo kaamirada duubaya iyo walaalkii qaali ah walaalkii iga weyn Hilaal oo ay qasam waraa gariir waa tahay hadna show ayaa nagala socotaan faniinta barnaamijkan midka ay ku kulmi doono
waxaan idinkaga tegaynaa muuqaal qurux badan sidaas iyo nabadgelyo Soomaaliya nabad si barnaamijyo qurux badan ee hodman idinkugu samayso like iyo share yaan laga wada hadlin subscribe hadda waa hawshiin wax fiican ma waxaas bismillah waa wax dhan wax lagu helay Soomaaliya daawatay waa hodman lacag ma raadinayso iida taajirad ah laakiin bulshada Soomaaliyeed waxay rabtaa sheekooyin ku duwan waa beenan kaliya iibsadu rabaa lacag ma leedahay ciyaartu lacag ma leedahay waa inta kafta waa xirnay waa yahay amaan Allah